السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نحرستي مدحوينيه هوري ودنك العراق سدام حسين دلكيسي تاريخ ديسي iyo xaaladihii uu soo maray waddanka Ciraaq ma aha mid dad dhagahooga ku cusub balse qaybtan waxaynu si gaar ah ugu milicsan doonaa daqiiqadihii ugu dambeeyay nolosha Allah u naxariistay Saddam Hussein waqtigii la dildilayay ee ay dilka ku fuliyeen ciidamadii gacansaarka la lahaa Mareykanka ee waddanka Ciraaq la taliyihii hore ee amniga qowmiga ee waddanka Ciraaq Mawfiq al-Rabiici waxa uu daaha ka fayday markii ugu horeysay macluumaad la xiriira daqiiqadihii ugu dambeeyay nolosha madaxweynihii hore ee waddanka Ciraaq Saddam Hussein kahor intii aan qoorta loo surin xarigii lagu daldalay arintaas aynu qaybtan ku faahfaahin doonaa ku soo dhawaada saaxiibayaal kanaalkeena qaamuus la taliyihii hore ee amniga qaranka waddanka Ciraaq Mawfiq al-Rabiici waxa uu faahfaahiyay oo uu dhowr jeer oo kala dambeeyay waraysiyo ku bixiyay sida xaaladdu ahayd daqiiqadihii ugu dambeeyay nolosha madaxweynihii hore ee waddanka Ciraaq Saddam Hussein kaasi oo isagu fulinayay dilkiisii daldalaadda ahaa waxa uu ninkan inoo sawirayaa sida ay Saddam xaaladiisu ahayd intii aan qoorta loo gelin xariga lagu daldalayay iyo markii loo geliyayba inta aan qudha laga jarin waxa xusid mudan in dilka madaxweyne Saddam Hussein dhacay 30kii bishii Disembar sanadkii 2006 oo ku beegnayd goor dambe oo habeenimo subaxnimo ay soo galeysay Ciid al-Adha al-Mubaarak Mawfiq al-Rabiici ayaynu ka soo qaadan doonaa qaybo uu kaga hadlay laba waraysi oo uu kala siiyay wakaaladda wararka AFP iyo sidoo kale telefishinka cusub ee Al-Arabi hadalkii uu yiri markii uu fuulay goobta lagu daldalayay ee uu indhihiisa ku arkay xariga weyn ee loo diyaariyay in qoorta loogu duubo si nafta looga qaado Saddam Hussein dalabkiisii kitaabka Quraanka Kariimka ah cuntadii uu doonay iyo ku dhawaaqistiisii shahaadada iyo sida jawigiisu ahaa ayuu inooga warramayaa Mawfiq al-Rabiici waxaanu yiri markii uu Saddam Hussein fuulay goobta lagu daldalayay waxa uu eegay xariga lagu dilayay waxaanu yiri kani waa ka ragga isagoo u jeeda xarigani inuu yahay ka loo diyaariyay geesiyada sidoo kale waxa Allah naxariistay Saddam dalbaday in loo keeno kitaabka Quraanka Kariimka ah si uu daqiiqadaha ugu dambeeya noloshiisa u taabto balse kooxdii dulka fulinaysay waa ay u diideen Mawfiq al-Rabiici waxa uu yiri intii aan qoorta loo gelin xariga waxa uu marka hore diiday inuu ku dhawaaqo shahaadada balse markii dambe ayuu bilaabay inuu ku dhawaaqo tawxiidka balse markii labaad isaga oo aan dhameystirin shahaadada ayuu xariga lagu daldalayay qoorta ka giijiyay oo hadalkii kasoo bixi kari waayay madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Hussein waa uu diiday in madaxa loo geliyo marada madow ee dadka lagu daldalo ayuu yiri Mawfiq al-Rabiici isagoo hadalka sii wadana waxa uu yiri Saddam uu diiday in madaxa loo geliyo marada madow ee dadka la daldalayo madaxa oo dhan loogu duubo waxaanu ahaa mid aanay haba yaraatee wax cabsi ahi ka muuqan si kasta oo uu arkayay in geeridii daqiiqada kooban uga harsan tahay oo adduunyada ka tagayo haddana haba yaraatee wax alla wax argagax ah oo ka muuqday ma aanay jirin sidoo kale waxaan diiday in aan fuliyo codsi iga yimid inanta uu dhalay Saddam ee raqad Saddam Hussein taasi oo iga codsatay inta aan la daldalin in ay la hadasho aabaheed balse codsigaasi waan diiday oo sharci iyo ogolaanay ma jirin waxa ay raqad igu tiri adiga iyo cashiiradaaduba waxaad hoos iman doontaan maalinta qiyaame qisooyinka qaar haddaba waxa ay sheegaan in madaxweyne Saddam Hussein dalbaday dhowr xabbo oo timir ah iyo koobiya ah intii aan la saarin goobta lagu daldalayay balse Mawfiq al-Rabiici waraysigiisan kuma sheegin taasi balse waxa xaqiijiyay in ay sidaasi dhacday nin kale oo kamid ahaa kooxda loo diyaariyay fulinta dilka Saddam Hussein Muhaysin al-Micmaari oo kamid ahaa saraakiishii dilka fuliyay waxa uu hore warbaahinta ugu sheegay in Saddam Hussein dalbaday dhowr xabbo oo timir ah iyo in Yurubiya isaga oo aanay wax cabsi ahi ka muuqan xaaladiisuna degan tahay wariyaha ka socday wakaaladda wararka AFP ee booqashada waqti hore ugu tagay al-Rabiici oo ka warramayay sida uu ahaa jawiga al-Rabiici markii uu xafiiskiisa ku booqday waa dhowr sano ka hore ayaa yiri waxa uu xidhnaa shaadh cad iyo suud madow oo tay weheliyo aadna u qurux badan waxa intaa u dheeraa kabadha dheer oo aad moodo kuwii askarta Mawfiq al-Rabiici oo maalmaha qaarkood ahaa sarkaal sare oo awood badan ayaa weli ah nin qab weyn oo aad isugu kalsoon waxa uu ku fadhiyay markii aan xafiiskiisa ku booqday ayuu yiri waryahani dhowr sano ka hor kursi aad u qurux badan oo dhexda u yaala xafiis habaysan oo aad moodo inuu ku yaalo dhismo wasaaradeed ama xarun dawladeed oo aad u qalabaysan kalsooni darteed waxa uu kolba dhinac isugu leexinayay kursiga uu ku fadhiyay waxa uu indhaha ku sitay muraayad khafiif ah oo aan oran karo waxay ahayd tii aragga wariyaha ka socday wakaaladda wararka AFP oo dhowr sano ka hor waraystay Mawfiq al-Rabiici ayaa waxa uu al-Rabiici u sheegay sidan waxaanu si toos ah u abaarnay qolkii loogu talagalay
in lagu daldalo oo uu ka dhaco falka dilka ahi. waxaa noogu diyaarsanaa dhammaan agabkii lagama maarmaanka ahaa ee fududaynayay dilka madaxweyne Saddam Hussein. markii uu arkay kursiga daldalaadda iyo xadhigga u diyaarsan qoortiisa ee dhumucda weyn leh, waxa uu si degan u eegay askartii madaxa ka daboolayd ee garbaha haysay iyo aniga oo garab taagnaa. waxaanu yidhi, tani waa jidka geesiga ee ma aha jidka uu ku dambeeyo fulayga iyo gaalraaco. waxaad tihiin basaasiin iyo wuxuush iyo dugaag u adeega Maraykanka iyo Yuhuudda. waxaa dhib nagu noqotay inaannu si degdeg ah sallaanka u saarno si aanu u fuushino goobta daldalaadda oo ahayd goob kor u dhisan, maadaama labadiisa lugood aad isu haysteen oo uu diidanaa inuu si wanaagsan u socdo. Mawfiq al-Rabiici, la taliyihii hore ee amniga qowmiga waddanka Ciraaq oo ka sii sheekaynaya sidii falka daldalaadda ahi u dhacay, waxa uu intaas ku daray, markii aanu saarnay Saddam goobtii lagu daldalayay ee aanu damacnay inaannu xadhigga qoorta u gelinno, si dhib yar ayuu qoorta u dhigtay. wax dhib ahna kalama aanaan kulmin. aniga ayaa gacantayda ku soo qabtay xadhiggii daldalaadda, qoortana u geliyey. balse dhibaatada ugu weyni waxa ayna qabsatay wixii intaasi ka dambeeyey, gaar ahaan markii aanu damacnay inaannu madaxa u gelinno maradii madaxa loo gelinayay ee daldalaadda. sharciga dunida u yaallaa waxa uu dhigayaa in qofka lagu fulinayo dil daldalaad ah madaxa loo geliyo maro si aanu u arag fulinta falka daldalaadda ah, gaar ahaan marka la laalaadinayo ee laga hoos saarayo wixii uu ku taagnaa qofka la dilayaa. Saddam Hussein waxa uu gebi ahaanba diiday in madaxa loo geliyo maradii loogu talagalay in loo geliyo. wakhti aanu ku guda jirno in aanu Saddam ku khasabno in aanu madaxa u gelino marada madow ee loogu talagalay, waxaa goobtii hoolka ahayd ee falkan laga fulinayay isqabsaday qayle iyo sawaxan dad. waxaa mar keliya ah dhagahayaga ku soo dhacday ereyadan: hawaaro oo ha jiro weligii xusuustiisu imaam maxamed baaqir al-Sadr. ninkan la sheegayaa waxa uu ahaa hogaamiye shiici ah oo ku dhintay gacanta Saddam wakhti hore. waxa kale oo nagu soo dhacayay ereyadan muqtada oo ah hogaamiye shiicada ah magaciisa. hadalladan waxa ku dhawaaqayay qaar ka mid ah askartii dilka fulinaysay ee hoolka ku sugnaa. markii intaasi hoolka ka baxday ee ay ku dhawaaqeen qaar ka mid ah askartii iyo kooxdii falkan ila fulinaysay, waxaa hadal kooban ku dhawaaqay Saddam Hussein oo wejigiisu isbedelay cadho darteed. waxaanu yidhi, ma taasaa raganimada aad ku faanaysaan? ma waxaasaa raganimo ah? markii intaasi dhacday, waxaa khasab nagu noqotay in aanu iska dayno maradii madoobeed ee loogu talagalay in madaxa lagaga xidho. waxa uu tahli waayey inuu wax dhaqdhaqaaq ah sameeyo, maadaama gacmaha lagaga xidhay qoortana loo sudhay xadhiggii lagu daldalayay. iskudaygii hore waannu ku guuldarraysanay oo waxaa naga xumaaday habkii dilka loo fulinayay, balse iskudaygii labaad ayaannu ku guulaysanay. waxaana Saddam ka soo baxay ereyadan: ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ashhadu anna muxammadan. waxa ay naftu ka baxday isaga oo aan dhammaystirin ashahaadada. gacantayda ayaan anigu xadhigga daldalaadda qoorta u geliyey. markii naftu ka baxday, waxa aanu ka soo dejinnay goobtii uu saarnaa, waxaanan ku duubnay kiish cad oo qara weyn. muddo daqiiqada ah ayaannu halkii ku sugnayn, kadibna waxaan u gudbinnay koox kale oo loogu talagalay in ay u diyaariyaan meydka xabaashii lagu aasi lahaa hogaamiyihii hore ee waddanka Ciraaq, Saddam Hussein Cabdulmajiid. daawadayaal, waraysigaa kooban ee uu ku bixiyey la taliyihii hore ee amniga qowmiga waddanka Ciraaq xaaladihii ugu dambeeyey ee Saddam Hussein markii la daldalayay, waxa aynu qaybteennan ku soo gebagabayn doonaa taariikhda kooban ee madaxweynihii hore ee dalkaasi, allah u naxariistay, Saddam Hussein. magaciisa oo buuxaa waa Saddam Hussein Cabdulmajiid al-Tikriti. waxa uu ku dhashay tuulo la yidhaahdo al-Cawja, waxayna u dhowdahay magaalada Tikrit oo iyada laftarkeedu 200 oo kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdaad. waxaanu dhashay sanadkii 1937. Saddam Hussein Cabdulmajiid al-Tikriti wuxuu ka soo jeeday qoys beeraley ah oo aad u danyar ah. aabihii waa uu geeriyooday, waxaana wakhti aan sidaas u sii fogeyn geerida aabihii u raacay geerida walaalkii isaga ka weynaa una geeriyooday xanuunka kansarka. nolosha Saddam Hussein waxaa kafaalo qaaday adeerkii oo loogu magacaabo Khayrullah Fataax. waxaanu adeerkii dhexda u xidhay sidii uu u korin lahaa wiilkan uu adeerka u yahay ee Saddam Hussein. hooyadii waxay guursatay nin ay isku qaraabo ahaayeen Saddam Hussein, kaasi oo lagu magacaabi jiray Ibraahim Hussein. waxaanu odaygaasi ahaa danyar ilaaliye ka ahaa iskuullada magaalada Tikrit. waxaanay hooyadii kadib odaygaasi u dhashay 3 carruur ah oo Saddam walaal kala noqday dhinaca hooyada. waxa uu nolosha ula soo kacaa kufa Saddam Hussein oo madaxa u rito maaraynta nolosha qoyskooda, ayaa haddana u babac dhigay waayo walba oo adag. magaalooyinka Mawsil iyo Baqdaad ayuu soo gaadhay, waana halkii uu ku qaatay noloshii hirdanka badnayd ee uu soo maray waqtigii dambe. qoraa carbeed oo buu ka diyaariyey halgankii taariikheed ee uu soo maray Saddam Hussein ayaa waxa uu sheegay mar uu ka hadlayay carruurnimadiisii in Saddam Hussein aanu arag weligii qof la mid ah dhanka adadayga, isaga oo dhammaystay aqoontiisii welibana maareeyey noloshiisii xanuunka badnayd.
sadaam tacliintiisii waxa uu kulliyadda xuquuqda ka bartay magaalada qaahira ee waddanka masar waxaanu dhammaystay cilmigiisii jaamacadda baqhdaad ee dalkiisa ciraaq waxaanu sannado badan kadib darajada aqoonta ee mastersta ka qaatay cilmiga ciidanka sanadku markuu ahaa 1979 sadaam waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadka saamaynta ku leh bulshooyinta carabeed gaar ahaan waddankiisa ciraaq sadaam waxa uu ahaa mid ka mid a dadkii qabay fikirkii jamaal cabdinaasir kaasi oo ahaa in carabta cudud iyo ciidanba loo mideeyo si ay u muuqdaan taag ahaan oo aan loo loodin karin waxaanu cabsanaa mabda'a qowmiga dalalka carbeed sadaam waxa uu guursaday gabadh ay ilmaadeer ahaayeen oo lagu magacaabi jiray saajida khayrullah waxayna u kala dhashay 2 wiil oo lagu kala magacaabo qusay iyo cuday oo ay dileen ciidanka Mareykanku sanadkii 2003 sidoo kale gabadhaasi waxay u dhashay 3 hablood oo lagu kala magacaabo Rana Riqad iyo Xalaa sadaam waxa siyaasadda ka caawiyay inuu soo galo adeerkii Khayrullah Fataax oo ahaa sarkaalkii ugu sarreeyay ciidamada qalabka sida ee waddanka Ciraaq waxa uu sadaam ku biiray xisbigii Al-Ba'ath oo ahaa waqtigaasi mucaaradkii ugu cuslaa ee Ciraaq waxaana 1959 sadaam iyo qaar ka mid ah ciidankiisa isku dayeen in ay ridaan dawladdii uu madaxweynaha ka ahaa Cabdulkariim Qaasim hase ahaatee markii ay u suurtageli weydii waxa uu u baxsaday Sadaam Xuseen dhinaca iyo waddanka Syria waxaana uga sii gudbay waddanka Masar xilligaasi waxa sadaam ku wehelinayay safarkiisa ku dhawaad 500 oo dhalinyaro ah kuwaasi oo dawladda Suuriya ugu tala gashay in ay dhamaystaan waxbarashadooda waxaanu intii uu joogay Masar uu waday abaabul uu Sadaam Xuseen ku doonayay in xukunka lagaga tuuro madaxweynihii Ciraaq ee waqtigaasi Cabdulkariim Qaasim waxaanu iskaashi la sameeyay saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida ee waddanka Ciraaq oo markii dambe sababtay in la toogto madaxweynihii la doonayay xukunka laga rido waxaana dilkaasi kadib madaxweynaha waddankaasi Ciraaq noqday Cabdisalaan Caarif sadaam xuseen ayaa markii uu ku soo noqday baqhdaad dalka ciraaq waxaa loo magacaabay madaxa sirdoonka ee dalkaasi waxaanu ahaa qof firfircoon oo shaqadiisa ka adag waxaanu qabtay howlo badan oo muhiim ah isagoo la shaqeeyay madaxweynihii cusbay la doortay muddo kadib waxa uu sadaam xuseen galay xabsi adag kadib markii isfaham waa soo kala dhex galay madaxdii waqtigaasi talinaysay sidoo kale waxaa sadaam lagu eedeeyey in uu abaabulay koox doonaysay inay xukunka ka tuuraan madaxweyne Cabdisalaam Caarif waxaanu aakhirkii halkaasi ka soo baxay inuu waddanka ka taliyo oo uu la wareego madaxweynenimada ninka lagu magacaabo Axmed Xasan Al-Bakar waqti kooban oo madaxweyne ahaa Axmed Xasan Al-Bakar waxaa soo food saaray xanuun culus kadibna wuxuu taladii waddanka ku wareejiyay hogaamiyihii sirdoonka Ciraaq Sadaam Xuseen oo sidaa ku noqday madaxweynihii waddanka taasi oo u rumowday riyadiisii uu muddada badan ku soo taamay durbadiiba dalka nidaam xoogan ayuu ka hirgeliyay waddanka Ciraaq oo kala qowmiyado iyo kala diime ah ayuu si midaysan isugu duubay waxa uu kobciyay hanaankii dhaqaale ee dalka iyo waliba adeegyadii caafimaadka iyo waxbarasho ee Ciraaq sidoo kale Sadaam waxa uu intii uu joogay talada waddankaasi Ciraaq ka dhigay meel loo soo shaqo doonto balse intuu Sadaam dalkaasi ka talinayay waxa uu galay dagaalkii ugu dheeraa oo socday 8 sano waxa uu la galay waddanka ay jaarka yihiin ee Iiraan waana dagaal lagu hoobtay oo aanay labada waddan midna ka faa'iidin waxa uu dagaalkaasi joogsaday markii uu sanadku ahaa 1988 waxaana laga dhaxlay dagaalkaasi inay ku dhinteen 1 milyan oo ruux oo labada dhinac ah sidoo kale burbur dhaqaale oo soo kaaray labada dal intaasi kadib Ciraaq waxay noqotay dagaal joog waliba waxa uu Sadaam Xuseen sameeyay in la helo hub badan si looga adkaado Iiraan iyo dalal badan oo markaasi cadow u arkay